sheekhuna Faadil su'aasha koowaad waxay ka timid gabar walaalaha qolka ku xiran awalan way ku salaamaysaa salaan ka bacdi waxay leedahay waxaan ahay gabar zawjada oo la qabo in hadda muddo ayaan isqabnaa aniga iyo xaajigayga marka waxay leedahay walaashan sheekhuna awal marka aan guursanayay waxaan ahaa gabar yani responsibility leh oo yani mas'uul ahayd oo waxeeda iyo yani u gacan yani kaligeed sameysanaysay hadda markii la guursaday maasha Allah waxay tiri odaygayga xagga dhaqaalaha aad uu u fiican yahay laakiin dhibaatada ay haysato waxay tiri guriga baan joogaa mar rabo inaan aniga wax qabsado adeega hataa haddaan rabo inaan soo adeegto isaga ayaa raba inuu soo adeego aniga wuxuu leeyahay guriga iska fadhi school baan dhigan jiray bay tiri iskuulkiina waxaan uga haray hadda waxaan yeeshay awlaad marka waxay tiri iskuulkii baan damcay inaan ku noqdo wuu ii diiday qaraabadeedana markaan rabo inaan u tago wuu xanaaqaa haddaan ku dhaho qaraabadaan u tagaaya ama waan baxayaa inaan banaanka xoogaa soo socdo oo neefta soo qaatona wuu ii diidaa bay leedahay marka waxay leedahay waan isku buuqay guurka inuu sidan ahaa iyo inaan aniga wax iga qaldan yahay iyo inuu isaga wax ka qaldan yahay ayaan kala garan laahay hadda waxay iga taagan tahay inaan ninkan walaalkay inaan lugoonin aan meeshaan aan sheekadayna ku dhamaysanay leedahay walaasha marka waxay leedahay sheekhuna Faadil iisoo ducay maxaa igula talin lahayd arinta ay haysato oo pressurekaas badan oo ay hayso فليتفضل مشكورا ومأجورا شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد gabadhaasi horta marka koobaad ilaahay ku shukri tabaaraka wa tacaala waxaad sheegatay nicmooyin aad u fara badan oo ayna haysanin gabdho fara badan oo muslimaadood isla joogtaan ama aad kala maqan tihiin waxaad sheegtay ninkaagu inuu kuu gacan furan yahay xagga dhaqaalaha waxaa kaloo aad sheegtay inuu wax walba uu guriga kugu keeno waan u soo noqon doonaa sheegashadaada laakiin marka koowaad arrimahaasi waxaan ku dhihi lahaa waa nicmo horta ha iska sheegin oo mar dambe yaan lagaa maqlin ilaahay ugu shukri tabaaraka wa tacaala caabud rabbulcizati tabaaraka wa tacaala adiga oo maanta waddan gaalo jooga oo raggii mid taraag saaran iyo mid qaad cunaya iyo mid hayri mas-uulaba in badan oo kamida ay u kala baxeen inuu ninkaagi kuu soo adeegaya 24 saac oo dhaqaalana uu gurigaagi kugu keenayo horta waa wax ilaahay loogu shukriyey rabbulciza ugu sujuudo rabbulciza ugu xamdi nicamka inuu kuu ziyaadiyo wa in tacuduu nicmata allahi laa tuxsuuha taasi horta intaasaan marka koobaad leeyahay tan aad tidhi noloshii baan isku buuqayna malaha dee nolosha buuqeedu waa un cibaado xumo haddii aad cibaadada badsato oo subxaanallahi kelimadii hadda aan ka hormarin ee cajiibka lahayd ee isbarbar dhigaysay qoyska wanaagsan iyo qoyska kale intaad dhegaysato kelimada si fiican mar labaad ku soo ceshato inaad in fara badan aad ilaahay caabuddo tabaaraka wa tacaala cibaadadana aad badsato waxba buuq arki maysid carruurtaadaba kugu filan ninkaagii oo ku jecelna wuu kuu soo noqon asagoo kuu soo adeegay ninka waxaan dhihi lahaa rag badan baad ka fiican tahay allaha kuu ziyaadiye jazaaka allahu khayran inaad haweenayda aad ka haqabtirtay adeeg iyo dhaqaale intaba laakiin qofku waa bini aadam shimbir ma aha waa qof dhan oo bini aadam oo dad baa dhalay ama la dhashay
وقف البدر بني آدم وإنه دقاق أيو تعليها أما أباهي حتى عافمات أهان أيضا والضمضا وليبا لتشوغانا أي خطريهين هذه الجواب تيدا مقريس أما المقلي دون تبع وحنكونت لله بإذن الله تبارك وتعالى قبلها سي عدادين تبضا كدا وقبلها إيه الكيدية قرابة ذا وحي أنقولي لها مركا كاسة سهادين أذيقا أيضا عافمات بيقنقن قرابة حريرين ويقنقن barakada ka imaanaysana gurigaaga iyo carruurtaada ay ku soo noqon berri waa la kala dhiman doona karaayo adiguba ma taqaanid intaad noolaan doonte gabadhu ehelkaaga adiga iyo ehelkeedaba inay barato oy isbartaan oy u tagto oy iskaga soo nafisto markaad adigu shaqada ku maqan tahay masalan waa tusaale iyo mararka qaarkood oo munaasabaada dee walaalo waa wax wanaagsane wadamadan khatar bay ku jiraane dadku ay ku jiraane gabadha intaa ka furfur biidnillahi tabaaraka wa tacaala gabadhana waxaan leeyahay ninkaaga sidaad arrinkan ooga dhaadhicin lahayd xikmadaad isticmaali lahayd iyo caqligii arrintaasi aad wax oga wada fardaamin lahayd ninkaagana u haysan lahayd gurigaagana uusan kaaga dumin adiguna cudurkan iyo buufiskan aad sheegaysa ooga bixi lahayd qaraabi iyo qoysna aad u soo booqan lahayd caqliga iyo xikmadana adiga laga dooni billahi tabaaraka wa tacaala waxaan ku khatimayaa gabadhay hadegdegin waxaan sameeyo ma garan hayo oo inaan wixii kala tuuraan ma ku fikirayaadan waxaad moodaa waswasa shaytaaniya ku jirtee nicmadii alla ku siiyey badnayd dib oogu noqo ilaahayna tabaaraka wa tacaala in badan caabud zawjkaagana soo dhaweey biidnillahi tabaaraka wa tacaala caqli iyo xikmadna ku darso carruurtaada iyo reerkaagana ilaasho nicmadana kor ha u sheegine in badan baa caawa su-aasha markay dhegaysteen laga yaaba inay dhahaan gabadha maxaa kasi ah waxa ay wadaadka weydiinaysaa waaba nicmo lagu daray iyo koosaar iyo malabe ma iska dhuuqdo marka nicmadaada dhuuqo allana caabud tabaaraka wa tacaala ninkaagana si wanaagsan oo xikmad leh oga dhaadhici arrimaha aad tabanayso wallahu aclam